عروري أيام حيسكو هيستا يستاهي ولالاتيني أيام محمد بوكتي سيا قلنانتي سودا ويستطورة أنا قلنتي ويستطور مرة البوية هيكترها عافتها وماديو لكن هوشو النعبي إنو شقي وعاكس محمد عروري وحالي شاكينا يا شاكو إيسو فرفريست هالكان إيسو فريست شاكا حريرة اللي هورا waxaa jiri jiray shinnidaas waxay ku noolad dhul qurux badan dhulkaas kayn buu ahaa shinnidaas waxay shinni dhammaanteed way wada shaqayn jireen waxay soo guri jireen malabka wixii ay ka samayn lahaayeen laakiin waxaa jiri jirtay shinni yaro ka mida shinniyaha oo iyadu aan shaqaynin oo iska ciyaarta oo mar walba boodbooda shinnidaas mar walba waxay la ciyaari jirtay balanbaalisaha shinniyaha kalena waxay shaqayn jireen shaqo aad iyo aad u daran maalin maalmaha ka mid ah boqoradii aragtay shinnida iska ciyaaraysa waxay ku tiri shinniyey adigu maxaad shinniyaha kale ula shaqay weyday shinnidii yarayd baa tiri anigu ma jecli shaqada waayo mar walba la iska daalinayo laga shaqaynayo boqorada iska nafis haddaani shinniyadaha kalene boqoradii baa ku tiri laakiin shinniyey waa loo baahan yahay shaqada haddaynaan shaqaynin waxyaabo badan baa adduunka la waayaya shinniyey ka oo shaqe haddii kale waa lagu ciqaabi doonaa laakiin shinnidii yarayd may dhegaysan waxaana iskala ciyaartay balanbaalisihii way iska qosasho way iska faraxday markii dambe ayay boqoradu u yeedhay ku tiri kaale shinniyey waxaan ku arkayaa inaad shaqo diiday oo aad ciyaaraysidun annaguna go'aan baan gaadhnay haddaan nahay boqortooyadii shinnida inaan kaa erino boqortooyada ee ka dhana dhaaf oo meesha doontid qabo haddii aanad shaqaynayn shinnidii yarayd sidii baa looga eriyay boqortooyadii waayo shaqayso way diiday sida saaxiibadaheeda kale shinnidii yarayd waxaa la hadashay saaxiibadeedii balanbaalis waxay ku tiri saaxiiboy shinniyey maxaad u diiday inaad shaqayso shinnidii yaraydna waxay tidhi mar walba waxaan samaynaa malabkaana dadkaa iska cuna annaguna waanu iska daalanaa marka maxaanu iska daalinaynaa waa inaan iska raaxaysannaa sida balanbaalintii adigu baad iskaga dulduushid ee aad iskaga raaxaysatid balanbaalistii yarayd waxay tidhi laakiin saaxiibo khalad baad fahantay adduunkan ilaahay markuu abuuray noolo kasta shaqo gaara buu u diray adiga shaqadaadu waxa weeyaan inaad malab samayso anigana shaqadaydu waxa weeyaan inaan geedadka ku dulduulo si aan geedadka u caawiyo inay bataan bal eeg dameeraha halkaa jooga mar walba waxbay qaadaan shaqadooda way ku faraxsan yihiin waayo ilaahay wuxuu abuuray inay hawl qabtaan oo ay mar walba wax qaadaan adiguna shinniyey shaqada ilaahay kuu abuuray waa inaad qabataa haddii kalese waxaad noqonaysaa shinni aan fiicnayn laakiin shinnidii marna may maqal saaxiibadeedii ala talinaysay ciyaarteedii baana iskaga sii jirtay maalin iyada oo shinnidii meelgeeda iska korsano iska faraxsan ayaa waxaa arkay inan yar oo hooyadii la socda inankii yaraabaa qayliyey hooyo shinnidani way cunaysaa ayuu inankii yaraa hooyadii ku yidhi hooyadiina intay soo qaatay kab ayay ku dhufatay shinnidii baalalka ayaa jabay cid caawisana way weyday waayo walaalaheedii shinniyaha ahayd beri hore kasoo guurtay shinnidii meel bay ka oyday waxay tiri alla haddaan walaalahayd la joogi lahaa shinniyihii kale imika way caawin lahaayeen laakiin waxaa arkay shimbir yar shinnida meesha ku dhacday wuxuu kuhi shinniyey maxaa kugu dhacay
ma ku caawiyaa? Waxay ku tiri shinnidii kaalayo haaye qaado, waxaad ii geysaa boqortooyadii shinniyaha si ay ii daweeyaan. Wasana way weyday, waayo walaalaheedii shinniyaha ahayd beri hore kasoo guurtay. Shinnidii meel bay ka oyday, waxay tiri alla haddaan walaalahay la joogi lahaa shinniyihii kale imika way caawin lahaayeen. Laakiin waxaa arkay shimbir yar shinnida meesha ku dhacday. wuxuu ku yidhi shinniye maxaa kugu dhacay? ma ku caawiyaa? Waxay ku tiri shinnidii kaalayo haaye qaado, waxaad ii geysaa boqortooyadii shinniyaha si ay ii daweeyaan. waana la soo qaaday shinnidii yarayd oo boqortooyadii shinniyaha ayaa la geeyey. waxaana loo keenay boqoraddii iyadoo aad u xanuunsanaysa. boqoraddii shinnida ahayd ayaa ku tiri maxaa kugu dhacay shinniye, yaa ku dilay? waxay ku tiri iga raalli ahaada, khalad baan sameeyey. shaqadii aan diilay darteed dhibaato fara badan baan la kulmay. mar dambe boqortooyada diidi maayo inaan ka dhex shaqeeyo. waan shaqaynayaa si fiican baan u soo gurayaa ubaxa malabkaan ka samaynayno. waan ka raali gelinayaa boqortooyoy. waxaan rajaynayaa inay saamaxdaan dhammaantiin. boqoraddii waxay ku tiri waan ku saamaxnabay. haddaad shinniya khaladkaagii garatay waan ku soo dhawaynaynaa. sidii baanay shinnidii ku noqotay mid shaqaysa oo fariida hawsheeda ka adag. malab macaan oo dadku ku caafimaadaanna u samaysa bini'aadanka. carruurey sheekadan maxaa ka faa'iideen se maxaa ka fahanteen? fariido wax fiican baad ka faa'iiday. aniguna ayay waxaan ka faa'iiday in aan shaqayno oo aan mar walba aynaan